General Aidid miyaa ka awood badnaa Iiraan. Kumandoska Mareykanka ayaa ku fashilmay howlgal qorshihiisu ahaa 90 daqiiqo oo isku bedelay 15 saacadood kaas oo ka dhacay caasimadda Muqdisho, balse isku bedelay ceeb iyo wajigabax ballaaran oo ay kala kulmeen ciidamadii uu hogaaminayay General Aidid, waxaana dhulka laga soo dhigay laba diyaaradood oo nooca qumaatiga u kacay loo yaqaan Black Hawk. 19 askari oo Amerikaan ayaa naftooda ku waayay howlgalkaas, halka 70 kalena ay ku dhaawacmeen. Dhacdadaas ayaa Mareykanka ku noqotay ur ku taalo uusan weligiis waxaana laga diyaariyay filanka caanka noqday ee Black Hawk Down, balse dowladda Iiraan ayaa ku fashilantay inay nolosha ku qabato laba beelood Amerikaan ah kuwaas oo ay dowladda Mareykanka si fudud ugu soo badbaadisay gudaha Iiraan. Labada beelood midkii ugu horeeyay waxaa la soo badbaadiyay isla maalintii koowaad ee diyaaradiisu ku dhacday gudaha Iiraan, halka midka labaad la soo badbaadiyay 2 maalin kadib. walow ay ciidamada Iiraan maalinta Jimcaha ahayd soo rideen dhowr diyaaradood oo Mareykanka leeyahay, haddana dhacdadan askarta loogu soo badbaadiyay gudaha Iiraan ayaa wajigabax weyn ku noqotay dhammaan ciidamada kala duwan ee dalkaas. Waxaan hadda kor u sii kacday rajada Mareykanka ka leeyahay inuu fuliyo howlgal lagu soo furanayo maadada uraniumka bacrimisan ee Iiraan oo tankeedu gaarayo 440 kilogram, taas oo lagu xiro madax gantaalada nuclearka. 440 kilogram oo uranium ah waxaa laga sameyn karaa ku dhawaad 8 ilaa 10 madax oo gantaalo nuclear ah. haddii ay ciidamada Mareykanka ku guuleystaan in maadadaas kala soo baxaan gudaha Iiraan, waxay noqon doontaa wajigabax kale oo Iiraan ku dhaca, soona gabagabeyn doontaa dagaalka muddada dheer qaatay ee ka socda Bariga Dhexe. Haddaba daawade, ma laga yaabaa in Iiraan lagu guuleysto dagaal kale oo ka dhaca gudaha dalkaas?